maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama ayaa waxa ay soo afjareen muran dhuleed oo muddo ka taagnaa gudaha magaalada Boorama sidoo warkaani inoogu soo diray Axmed Buudi. maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama oo weheliyo isuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta gobolkani Awdal ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u soo afjareen khilaaf muran dhuleed oo ka taagnaa deegaanka Buurta Faaraxyoodo muddooyinkii ugu dambeeyay soo jiitamayay waxna maamulka gobolka Awdal kan degmada Boorama isuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta gobolka oo ay weheliyaan waxgarad iyo odayaal ay arinta buurtani ay khusayso ayaa si waxay u soo afjareen khilaafka iyo muran in muddo ka taagnaa deegaanka Buurta Faaraxyoodo. ugu horeyn waxa isagu halkaasi ka hadlay maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi isagoona tilmaamay in isla goobtani ay taagan yihiin iyo sidoo kale buuraha kale ee la mid ay yihiin kuwa danguuda. kulli waa maqlaysay bariyahan dambe muran baa ka yar taagnaa halkan oo kamid ah 7 buureed oo loo calaamadeeyay danta guud. dadkii beeraha darafyada buurta kaga soo baxaya oo hadallo bariyahan dambe iyo cabashooyin odayaal dhaqanka ah iyo mas'uuliyiintii gobolka iyo degmada wasaaradda howlaha guud ciidankii nabadgelyada oo halkan ku sugan waxa maanta halkan la isugu yimi in la soo afjaro hadalladii cabashada ahaa bariyahan dambe aad media ka maqlayseen horta meesha calaamad baa ku xeersan rijcad baa la mariyay dan guud baa ayaan u qaadnay waxaan maanta halkan ka ballan qaadayaa cagaf shacbi inaanay halkan haddeed soo gelayn wixii aan ku heshiinay anagoo maamul iyo odayaal iyo dhan walba ku dhan in cagafta halkaa la soo geliyaa ay noqoto mid si cadaalad ah u marta meesha la doonayo ee aanay noqonin meel beer gaar ku noqoto cid gaar loo taarget garanayaana ma jirto cid gaar loo eriyanayaana ma jirto dadku waan u dhaxaynaa haddii jago laga iibsaday iyo haddii sees hore la dhigay iyo hadday meel bannaan ahaydoo buura ah sideedaa loo fulinayaa. dhankiisa waxa isaguna hadal ka qaatay isuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ee gobolka Awdal Saleebaan Aadan Samatar waxana uu sheegay isuduwuhu in buuraha iyo sidoo kale dooxyadu ay yihiin kuwa danguuda isla markaasina ay dawladdu leedahay. xeer 17ku wuxuu sheegayaa dhammaan waxa buur iyo dooxo dhan inay danguud yihiin. buurtan aynu taaganahayna waxay uun ka mid tahay maxaa ku dhahday buuraha dalka ku yaala ee ku xusan maxaa ku xeer 17ka wax alla wax u dhaafsiisan oo jira ma jiro in si cadaalada oo maxaa ku dhahday aan dhinacna maxaa ku dhahday ku xumeyn buurtaasi loo xayndaabay oo beer kasta oo ku soo baxaysay wixii ay xaq u lahayd ee aan buurta ka mid ahayn loo reebay. buurta dusheeda maadaama ay danguud tahay xeer 17na tahay wax alla wixii ay dawladdu doonto ay ka fushanaysaa. ugu dambeyn waxa isagu halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxana uu sheegay in buurtan iyo buuraha kale ee la mid ay yihiin kuwa danguud oo ay dawladdu iska leedahay. buurta dalsheeda ilaa daraf ilaa halka biyaha ilaa koonaha ilaa intii la xaydaamay la calaamadiyay waa danguud. dadweynaha mid baan u sheegay qofkii ku xadgudba ee inta wax dhaafsiisa inta soo dhaafa waxa la marinayaa sharciga. wixii aanu sheegnay ee danguudi waa buuraha ku xeeran magaalada oo dhan qofna ma sheegan karo 1 mitir qofka ma sheegan karo dushiisa inta loo xaydaamo kuwa kale waa la calaamadinaya kuwa tan lixtan waa la calaamadiyay tan aynu maanta joogno hawlaha guud wuu maqlayaa maayirku wuu maqlayaa wixii ummadda aynu u sheegnaa waa inay socdaan. mid saddexaad baa weheliso maayirka buurtan aynu imika joogno cagaftaadaad marinay ku ekaysiinaysaa ilaa buurta inta hadhay. arintani Buurta Faaraxyoodo oo in muddo murankeedu uu soo jiitamayay ayaa waxa ay mas'uuliyiintani ay saaka halkaasi ay ka cadeeyeen inay soo afjareen arintaasi isla markaasina oo dhamaanba dhulkan yahay danguud. Axmed Muuse Shaqasan Axmed Buuri wararka RTN TV Boorama.